munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayo xuska maalinta haweenka ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee xarunta maamulka gobolka Sanaag waxaana munaasabadan soo qabanqaabiyay haweenweynaha ururka NOL waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Sanaag maayir ku-xigeenka degmada Ceergaabo xildhibaano iyo martasharaf aad u tiro badan waxaana ugu horeynba munaasabadaasi ka hadlay Fadus Axmed Gurxan oo ku hadlaysay afka ururka haweenka NOL hase yeeshee anigu waxaan idin xasuusinayaa in layna xusay oo diinteenu ma horeyna xustay dadka ugu wanaagsan waxaan leeyahay waa inaynu inagu wax iska dhigno markaynu inagu wax iska dhigno inagu macnaysu yeelo ayaynu meel gaari karaynaa higsan karaynaa iyo yeelan karaynaa laakiin haddaynaan inagu isku duubnaa waxaan u malaynayaa inagii carruurteena haddaynu israacno saddex qaybood haddii laga dhigo dadka inagaa labadeena inagii carruurtooda israacno inagaa ka badan waxaan halkan fursadan anigoo ka faa'iidaysanayaa leeyahay oon u hambaliyaynayaa oon aad iyo aad u salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Aadan waxaan ku hambaliyaynayaa wuxuu nooga dhigay wasiiradiis ahayd ayuu nooga dhigay maanta waa tii koowaad sidaad u ogtiin ablaha iyo ogyihiin waa tii koowaad ee laga dhigo maaliyadda waxaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay suduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Faadumo Xaaji Xasan iyo maayir ku-xigeenka degmada Ceergaabo Saalax Ismaaciil Cabaase xuska sida 8 Maarso waa ujeedada waqtigii tagay in laga hadlo wixii inaga xumaaday wixii qabsoomay waqtigan la joogo waxa qabsoomay iyo mustaqbalka soo socda wixii la qaban doono ayaa sideedaba maalmaha loo qabtaa halku wanta haweenka hadaa ku sifaafayo waa waxbarashada gabdhaha kor loo qaado oo weeye xalinta khilaafaadka iyo ka hortagga tacadiyada waa tusaalayaal soo qaatay laakiin qofka marka raagsan wuxuu jiray wax badan baa la rabaa ruuwi dumarku habluhu hooyooyinku inay helaan xuquuqda ay leeyihiin meel kasta joogaan waxaan leeyahay marka aad iyo aad u mudan yihiin inaynu la shaqayno iyo inaynu waxa ay u baahan yihiinba wixii awoodeenna oo aynu qaban karno oo wanaaga aynu la raadino gabagabadina waxaa munaasabadaasi soo afmeeray gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falaay waxaan salaam fiican oo qiimo badan idinka salaam munaasabada awgeed marwada kuwaada qaranka marwad aamin maxamed jid aamin ugu salaam haweenaha reer Sanaag balanteenu waa cadaalad iyo midnimo iyo iskaashi oo barkad maxamuud Ceergaabo